هو يا الله الرحمن على شيخنا ملاذي عثمان إمام الولاية طبيب القلوب طريق الهدى إلى ذكر الله وذوق الحلا الله هو يا طبيب القلوب طريق الهدى إلى ذكر الله وذوق الحلا وكان سخيا كثير العطاء ومدل kulmisay cilmo u diinka ugu waaweyn ee ahlu sunna wal jamaa waxaan idinkaga soo dhaxadlayaa halkan oo ah xarunta Baghdad hadan si kale aan u iraahdo waa xarunta weyn ee Sheekh Cismaan Dheere oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay furitaanka khidma akhriska ziyaaradii Rabbaha u naxariistay Sheekh Cismaan Dheere waxaana furitaanka ziyaarada goobjoogka ahaa hogaamiyaasha dariiqooyinka oo kala ah Sheekh Ahmed Sheekh Aweys oo ah hogaanka dariiqada Qaadiriya waxaa sidoo kale goobjoogka ahaa hogaanka dariiqada Ahmadiya Sheekh Ahmed Sheekh Abdiraxiin Sheekh Uthmaan Sheekh Xasan Macallin Muumin iyo hogaamiyaasha kale ee jameecooyinka waxaana halkan khidma akhriska ziyaarada ka furay saaxiibul walaayaha jameecada Sheekh Cismaan Dheere Sheekh Mukhtaar Sheekh Cismaan Dheere ayadoona isla markaas halkaas lagu oogay khidmooyin quraan ah iyo qasiidooyinka saadaadka waxaana khidma akhriska ziyaarada oo socod doona dhowr maalmood oo halkan lagu akhri doono subax kasta khidmooyin quraan ah مدد يا شيخنا بحر العدا ولا مددي عبدا للرحمن العلي نور الورى والشهدي أنت أبو روحي فكون أيضا على توددي أصلح جميع جسدي أني يستقيم أودي لولا كمالي مذهب ولا ستؤال مشهدي يديم لي تماسكم بذيلك يا مهتدي ما أتى شيال بالمديح لأهل الوفا والعلا تم نظم من المبتدا ركب بحر العروض الجلا تم نظم من المبتدا ركب بحر العروض الجلا نجل لقماننا من على إمام الولاية الله وفاق جنود فرساني ثنا رجال الوصول زمر البدلاء قليل من نالى مثل فقره
ورضا ورحماني على شيخنا ملاذي عثمان إمام الولاية قليل من نال مثل فقره هو قليل من نال مثل فقره فويل لغاش عدا وخلا وسلم للنبي مقام في المدينة لدري كنت ونيسا يدي ليتني كنت ونيسا على يرايا المدينة ليتني كنت بعيدا مدينة ليتني كنت بعيدا يا رجل مدينة ليتني كنت ترابا ليتني كنت ترابا على المدينة ليتني كنت ثمارا ويا ليتني كنت ثمارا لتنام في المدينة. أحبابنا الكرام، إلهي سبحانه وتعالى أيام هاد إسكاله ساكي أو صباح جمعة سيد الأيام إنه وسو كل ميي مجلس كان بركيسن أو قيمة بدن أيضا أن إسكوه إيماني حفلتي وينيد السنوي قاهد اللو حسايي سيد السادات وقدوتنا وغوث زماننا الشيخ عثمان بن سيد الشيخ عبد الرحمن. حفلتنا وحاكسو قيب قلي جماعوين فربدن أو أهل الطرق الصوفية قيبه ذاك لدون وحاكسو قيب قلي وغوريا أشرافت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السجادة القادرية الشيخ أحمد ابن الشيخ أويس حفظه الله ورعاه. يا شيخنا شيخ أميني جماعة الشيخ أويس لما أنتود وحاكلا كسوق يبقلي صاحب السجادة جماعة آل أحمد الشيخ أحمدي حفظه الله ورعاه. جماعة آل أحمد هي جماعة القادرية اللهم كلا مرنا إن شاء الله تعالى حفلتني وينو بلابن إنسان وحنكسو دوين يا صاحب السجادة العثمانية وصاحب الولاية في الطريقة العثمانية أبوش مختار ابن سيد الشيخ عثمان ابن سيد الشيخ عبد الرحمن ابن سيد الشيخ إسحاق رضي الله تعالى عنه. الحمد لله ثم الحمد لله. إله يا مهد دمانتيد أي أسقناتي ومد مسلمين أهل التصوف أهل الطرق نغيالي. الحمد لله إله يا نقوم هذيننا نمعداس جزيلك قيمها بدن أيان إلهي يا نقوم هذيننا سيدو كله وافجينتا iyo karsiinta maanta ziyaarada waalidkeena aan ku ziyaaranayno aan ku xuseyno nawaafajiyo na karsiyeyna sidoo kale mahad labaad ayaan ilaahay uga mahadinaynaa. intaa kadib
saadaadkeena qeybahooda kala duwan, mashaa'ikhdeena ugu waaweyn qaadiriye iyo axmediyaba, inta hadda magacyadooda lasoo sheegay, qof walba oo ka mid ah shakhsi iyo fardi waxaan idin leenahay khayr badan Allah idin siiyo, abaalkiina ma gudi karno. waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha badan oo yeeritaankeena iyo codsigeena aad uga soo jawaabteen ayaan idinkaga mahadinaynaa. sharafta badnaa Sheekh Mukhtaar iyo Khaliif Cabdulqaadir ay noogu soo dhaweeyeen inaan maanta ka soo qayb galno ziyaaradii sheekhaynii Sheekh Cusmaan oo ahaa iftiinkii dariiqada, juhdi badan iyo jihaad badan, iyo dadaal badan dariiqada iyo diinta ku fidiyey axbaabta jaceylkoodii iyo ahlulbeydka ee markhaati laga yahay inuu xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam jaceylkiisii oo jeclaa axbaabtiisii ashraafta ahlulbeydka jaceylkoodii oo lahaa iyo muriidiinta iyo axbaabtii kaloo dariiqada ahluduruq oo dhan ee iskugu mid ahaayeen ee xaruntaan wada furneed soo dhoweyn iyo kalgacal iyo maxabo. sheekhaasi ziyaartiisii ayaan joognaa, aadna u jeclahay saadaatu suufiya ahluduruq oo dhan wada ziyaaranayay. maantana waajibay nagu tahay inaan ziyaarta sheekha si kal iyo laab leh ee buuxda ee maxabo ku dheehan tahay inaan ka soo qayb galno. ikhwaanana sida naloo karaameeyey, sida naloo darajeeyey, maqaamka noola yeelay wax la soo koobi karo ma aha. sheekhayna Sheekh Mukhtaar muraadkiisa Allah sahlo, waana ixtiraamay, waana darajeeyey, waana soo dhoweeyey. weyneyn intaan ka badanna ma jirta, wuxuu ku gaaray islaciifin iyo asaga inuu annakana weyneeyo u dan leeyahay. waana karaamay aduu akhri Allah karaameeyo. sheekhayna Sheekh Axmed Sheekh Awey sidoo kaleento asagana muraadkiisa Allah sahlo, cumrigiisa Allah noo dheereeyo. soo dhoweyntan iyo ixtiraamkan weyn isagaa qaybka ah, waana la soo dhoweeyey. aala axmed kalimahna durqa suufiyo dhammaan meeshaan ku kulansan. waxaan leenahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo. siyaarta sheekha aad dhigteen oo weynayseen anakana waa idinku garab taagannahay. maanta waqadan ka barakaysayna insha Allah, nafacaadkiisa Allah na siiyo. intii qalbiga nagu hayso oo na soo gaari weysana muraadkooda Allah sahlo. ikhwatul iimaan, maanta waxaan joognaa ziyaaradii weyneed sayidinaa wa ustaadinaa wa murabbinaa الشيخ عثمان بن شيخ عبد الرحمن بن شيخ إسحاق زيارتنا جوجنا وحان ليه طوى من رأى شيخ عثمان أنيق وحان كميده رقي شيخ عثمان سو أركان كميد أهي ولفا ديستي ولما جالسو دي وشيخ مذاكرويان كميد أهي مركا تاسا كفانا يا مانتا مدك إلهي جل شأنه قرآنك وحوكو يري nimanka qurayshta iyo gaalada iyo mujrimiinta iyo mulxidiinta iyo daalimiinta waxay ku weydiin doonaan ruuxda. ruux maxaa la yidhaahdaa? waxaad ugu jawaabtaa yas'aluunaka cani ruux, ruuxday ku weydiinayaan. ruuxdana nebi maxamed waxaa la yidhi sala allahu calayhi wasalam adiga haddaa ma taqaanadaa la yidhi. maxaa yeelay ruuxda ilaahay bisaa garan karo meesha ay ku jirto. madaxa may kaaga jirtaa, ma laway kaaga jirtaa, ma intay kaaga jirtaa ruuxda horta. marka rasuulkana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi ruuxda aada u jeedaan uu yidhi junuud oo la soo dira waayuu yidhi oo isbahaysatay. haddii junuuddaas ay isku soo arkaan markii hore meeshii ilaahay u abuuray, markay adduunka isu yimaadaan
waa is soo dumayaan waa is jecel yihiin waa isu wanaagsan yihiin yacnii midba mid kale markuu arko waa ku farxaa haddii xagga ay isku soo khilaafaanne markay adduunyada isu arkaan mid kasta mid kale soo caraysan yahay waa xanaaqsan yahay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa dadka xaadiriinta ah wujuudan oo nuurka badan leh oo saadaadka lagu soo bilaabay ila al'aana muriidiinta iyo mushamiriinta iyo dadka ahlu khayrka meesha joogo kulligood waxaan aad iyo aad u rajaynayaa dadkii arwaaxdooda ay xagga isku soo aragto waayo maxaa yeelay say isu jecel yihiin say isu dumaayaan say isu soo dhoweynayaan marka inaan kelimadu ku dheeraada ma rabo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sheekha saaxiibu sajaadaha dariiqatu alcuthmaaniya sheekh mukhtaar cimrigiisa allah noo dheereeyo ixtiraamka weli socda khayr allah siiyo sheekh mushaawis waxaan gelaynaa aakhirada qur-aankan barakaysanaa insha allahu waxaan leenahay qur-aanka hala bilaabo hala galo insha allahu tacaala